mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu baharsanaa ee qaaradda soo maray. Ninka kaliya si afdheer u yiri intaan noolahay anaa dalkan madaxweyne ka ah markuu muddo xukumayay naftiisa isku boqray oo imbaraador sheegtay dhacdooyinka dawaagnimada ah oo ay ka mid yihiin cunida hilibka dadka ayuu lahaa. waa ninka Soomaalidu ku halqabsadaan ereyga ah Bukasa yiri anaa nafteeda boqoray. waxaana maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa Jean Bedel Bukasa oo ah hogaamiye aan jixin intaanan muuqaalka u gudagelin like saar videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. magaciiguna waa Abbas Mustafa. Jean Bedel Bukasa wuxuu ahaa madaxweynihii labaad ee hogaamiya Jamhuuriyadda Afrika Dhexe. aabihii wuxuu dhintay asigoo yar waxaana dilay gumeystihii Faransiiska oo xilligaa maamulayay waddankaas. hooyadii waxay dhimatay asigoo 6 jir ah oo 2 isbuuc kadib markii aabihii la dilay iyaduna way isdishay. waxa ay ka tagtay 12 caruur ah oo asiga ku jira. Bukasa wuxuu ku biiray 18 jirkiisa ciidamada Faransiiska asigoo la dalacsiiyay oo dagaalo badan ka qayb galay xitaa ay dawladda Faransiisku siisay dhalashada dalkeeda. sanadii 1966 ayuu dalkiisa afgembi military kula wareegay talada uuna isku caleemo saaray madaxweynaha dalka. wuxuu ahaa hogaamiye dhiig cab ah aad u arxan daran ciqaab badan iyo si xun ula dhaqmi jiray dadkiisa. waxyaabaha laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah in Bukasa kuwa su'aalo geliyo daacadnimadii ay u hayaan taliskiisa intuu soo qabta ayuu yiraahdaa kala doorta in la idinku dhex tuuro libaaxyada ama yaxaansada oo bahalaha siin jiray. intaas uguma hari jirin oo xitaa qoyskooda si aysan uga argudin iyaguna waa gumaadi jiray. waxyaabaha la yaabka lahaa ayaa ah inuu mararka qaar u casuumayo dadka u dhadhow ayuu casuumaad u fidin jiray. markii ay cunaan hilibka ayuu oran jiray mataqaanaan hilibkan aad cunteen waa hilib dadeed. inta uu dilo kuwa mucaaradka ku ah ayuu hilibkooda u karin jiray asxaabtiisa. wuxuu cuni jiray hilibaha dadka qaasatan kuwa caruurta. dalkiisu diamond iyo dahab badan ayuu lahaa. inta uu soo saaray oo dibadda u iibgeyn jiray si uu lacag ugu helo. lacagta uu ka helana wuxuu ku soo gadan jiray khamri qaali ah ee Faransa. dhacdooyinka lagu xasuusto waxaa ka mid ah caruurta iskuulka oo ku mudaharaaday inuu aad u xasuuqay. waa madaxweynaha kaliya ee shaaciyay inta uu nool yahay dalkiisa madaxweyne ka ahaanayo oo geeridu kaliya ay ka kaxeynayso. 10 sano ka badan oo madaxweyne ahaa ayuu sanadii 1976 ku dhawaaqay inuu yahay imbaraadorka dalkiisa oo boqor yahay. waxa uu boqorad ka dhigay 17 xaas oo lahaa midii saddexaad oo iyadoo 14 jir ah dugsi ay dhiganayso ka soo qafaashay gurigana keensaday 7 caruurna u dhashay. 2 sano kadib iyadii caruurteedaba way ka carareen oo Switzerland ayay gashay iyadoo xoogaa Diamond ah kala tagtay. sanadii 1976 oo ahayd xilli ku beegan sanadii uu doonayay inuu noqdo boqor ayuu Liibiya tagay asigoo Qadaafi la kulmay. wuxuuna yiri Qadaafiyow waan muslimayaa dhaqaaleysi. Qadaafi waxa uu ballan qaaday haddii uu muslimo inuu dhaqaale siin doono. markiiba diinta Islaamka ayuu qaatay oo waxaa loo bixiyay Saalax Axmed Bukasa. isla sanadkii ayuu diinta Islaamka ka baxay asigoo kristaanimadiisa ku laabtay maadaama uu lacag ka waayay Qadaafi. wuxuu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii Afrika ugu dhibkay daacadda badnaa. 54 caruur ah ayuu dhalay 17 xaasna waa uu qabay oo badankoodii xoog ku haystay. sanadii 1979 asigoo Qadaafi la joogo oo Liibiya ku sugan ayay dawladda Faransiisku qafaashay oo la musaafuriyay si dadka loogu qabto. muddo uu maqnaa musaafiriska dalkiisa buu ku soo laabtay waa la xiray san yar kadib waa la iska sii daayay iyadoo xilliga dalkiisa ciidda maamuleysay oo ahayd ku u shaqeynayay xilligiisa oo ay asxaab ahaayeen. Bukasa wuxuu yiri waxaan ahay saxaabi 13aad oo waxaan ku ahay 12kii saxaabi ee ciise diintiisa la waday. waxaan ahay ruux barakeysan si hoosana boobkii kaniisadda Katoliga ayaan ula kulmaa. caasimada dalkaas ee Bangui ayuu ku dhintay sanadii 1996.